madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku guuleysatay qorshe ay u dhigtay ururkii kacdoonka Hiiraan ee uu hogaaminayay Jenaraal Abuukar Warsame Xuud. Generaalka ayaa Muqdisho la keenay 19 bishii aynu ka soo gudubnay ee January iyadoo loo adeegsaday saaxiibkiis taliyaha ciidamada dhulka Jenaraal Maxamed Tahliil Biixi. waxaana markii uu Muqdisho yimid uu sheegay inuu caasimada u yimid arrimo qaran isla markaana uu wada hadal la geli doono madaxda dawladda isagoo cadeeyay inaysan waxba iska bedelin mowqifkiisa Hirshabeelle. wada hadaladii Muqdisho ayaa waxba ka soo bixin waayeen dhowr jeer oo uu saxaafadda la hadlay Jenaraal Xuudna ma sheegin wax cad oo aan ka ahayn in wixii ay ugu tageen Farmaajo ay ka heleen iyo diidmadiisa madaxweynaha Hirshabeelle. intii Jenaraal Xuud iyo kooxdiisa xamar ay joogeen wuxuu Farmaajo magaalada Beledweyne u diray boqolaal ciidamo isugu jira gorgor iyo haramcad balse Jenaraal Xuud uu ka gaabsaday inuu ka hadlo waxayna ugu dambeyn ciidamadaasi la wareegeen magaalada Beledweyne oo ay si awood ah ugu dambeyn u geeyeen Cali Cabdilaahi Xuseen Guudlaawe. waxaa shaki soo kala dhaxgalay kooxdii kacdoonka Hiiraan oo qaarkood iska fogeeyay qorshaha uu Jenaraal Xuud u joogo Muqdisho waxaana soo baxay xog sheegaysa in uu Jenaraal Xuud iyo sidoo kale xubnaha la socda ee madaxtooyada Soomaaliya ka heleen lacag ku dhow $100,000 lacagtaas oo la sheegay inay khilaaf ka dhexdhalisay ayaga dhexdooda. Jenaraal Xuud wuxuu ilaa shalay ku taagnaa mowqifkiisii ahaa inuusan madaxweynaha Hirshabeelle tagi karin Beledweyne wuxuu qarsan in ay markaasi ku dhacday khiyaano ah in loo daba marayo magaaladii laga keenay haddii la geenayo Cali Guudlaawe. qorshaha kooxda Farmaajo u dhigtay kooxdii Jenaraal Xuud waxay ahayd khiyaano looga dan lahaa in Beledweyne ay la wareegaan ciidamada ka amar qaata Farmaajo kadibna ay ka dhacdo doorasho ay ku soo baxaan xubnaha uu wato ee ugu horeeyo la taliyihiisa Fahad Yaasin. waxaa muuqata in uu inta badan hirgalay qorshaha lagu kala jebiyay kooxdii Jenaraal Xuud oo aan awoodin in ay xitaa cambaareeyaan halka dhibaatadu uga timi ee madaxtooyada Soomaaliya iyo Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. haddii sida loo qorsheeyay u dhacdo doorashada kuraasta taala Beledweyne waxaa halkaasi ku hakanaya xal u raadinta khilaafka Hirshabeelle oo markii horeba laga soo abaabulay Villa Soomaaliya waxayna arrintaasi ku imaan doontaa madaxda dawladda soo socota. dhinaca kalena madaxweyne ku-xigeenka dawlad goboleedka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa faahfaahin ka bixiyay qorshaha safarka madaxweynaha maamulkaasi Cali Guudlaawe uu ku tagay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan shalay. Yuusuf Dabageed ayaa sheegay in qorshaha madaxweynaha uu yahay in qof kasta oo reer Hiiraan ee tabasho markaasi uu qabo uu kala fariisto oo uu ka xalliyo. sidoo kale waxa uu sheegay in hadda ka hor aysan madaxweynaha u suurtagelin in uu tago magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan balse qolo kasta oo tabasho qabta uu hadda kadib kala fariisan doono waxa ay ka tabanayso maamulka oo hogaamiyo. qof kasta oo reer Hiiraan ah waa la fariisan doonaa aniga iyo madaxweynaha waxaana diyaar u nahay in aan ka qancino tabashada ay qabaan. waxaan ka codsanaynaa dadka in dawladnimada laga wada shaqeeyo ayuu yiri madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabeelle. hadalka Dabageed ayaa waafaqsan kii Cali Guudlaawe ee shalay oo xilli uu ka hadlay munaasabad lagu soo dhaweeyay ballan qaaday in uu xallin doono tabashada ka taagan gobolka Hiiraan isla markaana uu cadaalad fali doono dadka reer Hiiraan. alle ayaa mahadaas iska leh maanta haddii aan magaalada Beledweyne aan ku wada sugannahay waxaan uga mahad celinaynaa halkan cid kasta oo gacan ka geysatay in ay sida wanaagsan u dhacdo oo annaga oo nabad ah oo wax dhibaato aan dhicin aan isku imaano ayuu yiri ugu horeyntii isaga oo si gaar ah ugu mahad celiya duubabka dhaqanka ciidanka amniga iyo madaxda sare ee Hirshabeelle. Guudlaawe ayaa sheegay inuu diyaar u yahay in tabasho kasta oo jirta iyo cid kasta oo wax tabanaysa uu la fariisan doono oo uu ka garaabi doono xilli ay muddo xiisad siyaasadeed ka taagneed magaalada caasimadda u ah gobolka Hiiraan ee Beledweyne.